Because this is a reminder haddii ay xaaladaada kulushahay iska adkayso wax ka qawaada ka qaban kartid adi kalena alxamdulillah marka dareemaysid intuu wax kastay nacam ka farabaxeen oo waxyaabo badan ka hor imanayoon tani faham waxa qaban kartid ka qabo waxa kale walwalkiyo waxa soo dhan waxba kuma tarayoon marka عليكم على سيتين ما في عنتين الحمد لله نواني في عن هاي ذلك ما كدري مسين وجهي أو ماي جاد معلم هنو عين بضا يا من دلحيس بحياة مركز دلحيس بحسنا نعم انت اللي عاقك عبحسا especially مركز دوك عاقك تيجسيد كل يوم ولا جرينسي ماشان تجي إن شاء الله إمي كاد داونسي المقالة كنوان جوجا وماشاس إن شاء الله وتعالى anyways waxaan doonay inta maanta aan yar sheekeysano maad aragteen markaad orta codkayga waxay ahay hargab iga baxayeen imika wax gaaray aabil igu soo noqday codkaygana toddobaadkii hore iga go'ayd imika codkayga igu soo noqdana waa kaas imikana u go'aya anyways waxaan doonay inta muuqaalka ni duubo soo waan duubay insha Allah maad aragteen markaad waxa ku tala gashid oo plans ah samaysid oo waxyaabo badan ka hor imaadoon sidoo kale oo de arno ilaahay tijaabinaya samirkaaga ama de ilaahay intuu ku tusay inta waxaan khayr ku lahayn maad aragteen waxaan leeyahay wallahi anigu soo ogtiin wax kasta waan plan garaya wax kasta waan qoraa goolal ayaan leeyahay halafkeyguna wuxuu yahay de intaan meel noloshan aan ka gaaro 4 cishood aan noolyahay right laakiin waxaan arkaa markay wax khayr ii leedahay wax kasta waa easy wax barakeysan ma iga soo baxo albaabadu way furnaadaan nacam everything is smooth and easy markuu wax khayr ii leehayna malaha ilaahay ay tusaya wax kasta waa ligu adkeeya imika koleyba lama sheer garayn kara laakiin waxaan rajeynayaa intaan sameeyo oo I don't know so far waa sidoo kale wax kasta iga hor imanaya wax kasta oo I don't know aday tahay aduu ilaahay tijaabinayo samirkayga I don't know aday tahay waxna du khayr ii leeyahay laakiin waxaan doonayaa intaad hadalkan aad dhageysatiin noloshaada hadii aad rabtid inta horta wax aqabsatid wax kasta horta xagga ilaahay ay ka socotaa ilaahayna wuxuu kaaga baahay intaad dadaashid dadaalka kaan shaqayso haduu waxan khayr ku leeyahay waa heli hadii kalena aanad waa wax dimala calaf ku lahayn ama waqtigaaga ma iman si laakiin marka dareemaysid intuu wax kastay nacam ka farabaxeen oo waxyaabo badan ka hor imanayoon tani faham waxa qaban kartid ka qabo waxa kale walwalkiyo waxa soo dhan waxba kuma tarayoon markaas wallahi anu taas ayaa markasta is xasuusiya laana waan nadaaminaya waxa waan plan garanayaa waan dadaalkayga waa arkasiin adana ima dhacsasaan doonay banar waxa dhaca waxaan anigu aan diyaarsado waxaan anigu niyadeedan ku hayo sidii aan doonayso ka sii qurux badan ayay igu dhacdaa waa ilaahay ku arkaya ilaahay isagana abuuray uu garanaya waxa niyadeena ku jira oo waxaana ka noo fiican markaas another example waxay noqon kartaa hadii qof sheekaysanaysiin oo de sheekadaas meelna gaarayeen oo de xumaanto malaha markaas waa niyad jabi waa marar dilaaci laakiin sanado kadib waxa oran alxamdulillah ilaahay intuu albaabkaasiga xiray markaas wax kasta noloshaada ku hor imaada dadaal laakiin waxa ka farabaxa duceyso iska siida waxaad doonaysid oo de waxaasna tahay wax de qiimo badan leh so easy kuguma imanaso waxay kaaga baahantahay dadaal ilaahay ayaa horta tijaabinaya samirkaaga wuxuuna ilaahay eegaya sida u doonaysid waxan right Allah is testing you markaad dadaashado wax kasta aad samaysid hadii adana waxaas kuu socon ogow khayr kuma leh ama ilaahay xag ilaahay ay ka socotaay ilaahay ba wax xun ka badbaadinaya markaas anigu wallahi maalimahan oo dhan waan buuqsayahay waxyaabo badan ayaa igu furmay waxyaabo badan aan ku tala galay ayaa ii socon laakiin markasta waan celiyaa shadaanku markuu ii sheekayo oo aan walwal aan galo waan celiyaa shadaanka iska naaraa waxaan siraadana asteexo waxan wax ma ka qaban kartaa Soomaaliya markaas iska duceyso ilaahay u duceyso take it easy
waxa qabsan kartid qabso wax kalena dan iska dhig anu waxaan dadka moodkeegu energy ay la socdaa waxa duu maalinta markaan saas subaxdii u soo tooso duu hadal iga hor imaado ama wax madax xanuun ama family drama maalinteeda oo dhan ayay qabsataa maalinteeda oo dhan ayay iga khasaartaa markaas wallahi nacam imika waan dhoofaya waan dalxiis baxaya waxyaabo badan ayaa isku kay soo baxay markii laata oo kala wada caruur ayaan la dhoofayaa waan iscishaa markaas waxaan isran stay focus waxaan waa wax ka fara baxay waxa qaban kartidna qabso programkaaga sideen iska wado waxa aniguna de wallahi anxiety waan iska leeyahay laakiin shaydaanka iska naara waxaan israadaa alxamdulillah waan dadaali hadii khair ila dahna ilaahay ay fududeeyo dikana malaha this is the best way possible marka message kan muuqaalkan waxaan u duubayaa intaan anigu is xasuusiyo idinkana ni xasuusiyo hadii aad nolosha nacam aday tahay jaamacad intaad qortid wax adaniyadaada ku hayso de waxaas ku socon wallahi iska duceyso dadaalkana keen xoogaaga nacam xoogaaga waxa ku qaban kartid ku qabo hadii ay ka farabaxday walwalku waxba kuma tarayo marka waqtigaaga kulli lumin intaad ka walwashid oo fikirtid oo isbuuq agashid don't waste your time aniguna waxaan isleeyahay you don't even have that luxury waqti walwashid ma haystaba imika caruurteeda caruur yar baby ayaa guriga igu sugaya markaas I don't even have time inta walwalo markaas wallahi waxa weeyaan maskaxdan waa sida muruqa waa sida waxa bartid markaas naftaada bartaasid ma aragteen aniguna wallahi ma sha Allah kulay way daawanaysaa my little cousin magaciiga ma sheegay my little cousin actually ma sheegay Sumaya anyways waxa weeyaan gabadh degan like way degan tahay aniguna I get so much inspiration from her way gabadhay caawisade wax kasta iyada ay la qabata laakiin way degan tahay isku waa cousinteeda markaas markii family drama oo kale uu dhaco iyadu waa chill markaa bay ku oran hadda way iga yar tahay markay dhalataan garanaya markaa bay iga orani waxba kama qaban karno it's okay what can we do nothing what chill wadadka ilaahay wallahi markaas wallahi dadka hareerihiina ee wanaagsan wax ka barta nolosha waa cashir wax ka barta iyadu taas ayaan ka bartay samirka intaan dejiyo walwalkii waxaas waxba kuma tarayo markaas this is a reminder hadii ay xaaladaada kulushahay iska adkayso wax ka qawaada ka qaban kartid adii kalena alxamdulillah waxa kulleeba waxa jira dad xaalad ka sii kulul ku jira markaas alxamdulillah waxa ka qaban kartid xaaladaada ka qabo waxa ka qaban karina xaq ilaahay isku xir oo alxamdulillah so anu taasid ayaan isku celinayaa maalimahan because wallahi doof yo dalxiis yo hurdo la'aan baa igu beertay baby girl dadka badankay la socda waxay is iraadaan waxaan oo dhan isugu wadaa wallahi horta alxamdulillah caawitaan badan ayaan leeyahay my cousin yo dadkii caawinaya alxamdulillah laakiin wax weyn maskaxdeeda I try to stay focused hareerahayga dadkan soo jiidanayo wax kasta waan qoraa waan isnadaamiya so that I can stay focused hadii kale waan malaha khalaas wala gaboobay hadii aan horta wax aan qorin it's like waxaas ma jiraba waa sidoo kale waxaas jirin markaas wax kasta waan qoraa imika hadda telefoonkayga aragtid inta list aan haysto way ku khosasiin adoo la kulli xaal soo duceeyo walaalayaal soo duceeyo alxamdulillah ala kulli xaal walaal soo duceeya ilaahay ay barakay wax kastaan aan qabsanayo de khair ii leedahay inkana wani wala jeceliyaa wani salaamaya muuqaalkana waan gaabinaya because waa hablihii waa intaan soo qaaday iminkaan ila hadlayo alaabteeda meel baa lagu iibinayaa anyways waa intaan hablihii soo qaadaa guriga tagaa shandadii ayaa la xirayaa waa la dhoofaya kulli muuqaalkan markaa arki doontiin Djibouti ayaan joogaa markaas soo duceeyo walaalayaal waana wala dhukanayaa ilaahay wax kasta noloshiina arabtiina qalbigiina ku haysiin oo de ni wanaagsan ilaahana siiyo ilaahana wala siiyo love you guys. Assalamu alaikum.